Soomaalida hadda waxaa kusoo batay mujaamaladii afgubaadkii afmacaanaantii waxaa kusoo batay magacyadii la qaybinayay magacyada waxaa loo qaybinaya si raashin camal si tabarucaad meel ku daadsan baa loo qaybinaya waxaan ku iri ugaas suldaan garaad boqor gudoomiye abwaan xildhibaane aqoon-yahan ustaad baa ka daran moogtaa waxaasaa loo qaybinaya waa yaabaysa hadda dadaan lahayn baa cimaamadaha iyo koofidaha loo qaybinaya ma garad marka dadku waxay ku kala duwan yihiin baasaskan la dhiibayo ee khaldan qofii uu fahmayaayo raacamaya baaska qofna uu iska hor ordaya markaasuu kubadda intuu ku istaagaba madaxa dhulka bilaabay magarad yaa marka dadka saasay ku kala duwan yihiin qofkan waa inuu fahmo baaskan inuu saxan yahay in kale taalanti baa leedahay marka lagu dhaho dee inaa waxaan ay runta ka tahay dadkani in kale waa inaa fahamta moogta caqligaaga yacni mararka qaarkood baa qof baa wuxuu iska soo dhigaya wax uu isagoo gabay ku sheegay isaga ka aaminsan yahay annaga laakiin uunan gabayna la ahayn marka wuxuu soo dhigaya matalan haddii anigu aan ahay adduun iyo aakhiraba waxa weeye wuxun adigu dhawaqa gabay kaa intuu soo dhigo ama heys ama maanso uu wuxuu ku sheegay wuxuu leeyahay waka dad baa marka kubaddan dad baa garoomada la taagan oo baasaska dhiibaya markaasuu ka horreeya hal abuure abwaan xagaad ku soo dahday waqtigan waad naga soo habsaantay markaasuu nafarkiisa oranaya wallaahi waxani waaba soo dahdayba oo soo habsaantayba markaasuu soo dhigaya mar kale kana bal eega waa kan markaasaa wada heedha miidhan iyo waxaan ku yidhi anigu adiga ma tihid isagu iyada maaha inagu idinkama nihin idinkuna inaga ma nihin xamaasada ay qaadeen markaas waxaa arkaysaa kiyo xafladaha looga sacbinayo kiyo kala kaxsaday kiyo waxaan ku yidhi bismillaahi raxmaan laleeyahay abwaanka ummadda soomaaliya baas hadhowbaa qofkii dadkii xaqa u lahaa waxaan yaqaanay baas oranaya kasoo dhiciya qofkii lagama soo dhicin karaba wuxuu moodaya in waxaa xaq u leeyahay in guushiisa lala dagaalamayo in hal abuurkiisii laga xastayo abwaanadan kale way xastayaan buu leeyahay challengeski weeye guusha waxaan isagoo iska dhigaya macnaha in waxaan dulmi lagu haysto kale hadda waa baasaska khaldanaya ciyaalka xaafadu dhiibay magarta kiibuu la ordaya kubadii buu la ordaya dadkii buu hore ordaya oo laleeyahay wardhig warmaahay qaar baa oranaya wada wallaahi iyadiya magarata marka baasaska khaldan imka waxaa ka mid a codka qof baa cod yar soo duubaya baas khaldan marka adigu waa ina caqligaaga aad leedahay baaska khaldan iyo baaska saxan aad ku kala garan karto ka saxan aa qaad dad badan ba hadda baasaska iskaga mid intay noqdeen baa isagoo taalantigan leh oo run ahaan wallaahi xaqiiq ahaan u leh waxaa leeyahay ruuxan qoraabaad ku habboon tahay buug qor ama wax samee ama wallaahi ganacsiga waa ku fiicanta qofkii baa oranaya igadaa absi wallaahi igadaa cabdillaahi may wallag ilaahay igat isagoo oranaya baa arkaysaa marka haddana waa baas saxan inuu qaataa fiican caqligaagaan ku kala garan karta haddee sida aad reer magaalka u tahay sida aad waxaan fahansantahay sida aad u qiimeyn karto waxa la isku khaldo iyo sida dadka ku oranaya dad muhiima oo macquula hadday yihiin dee waa caadi laakiin qaar aadan garanayn inay ku hor dhigaan ma garata anigu waxaan ahay horta falanqeeyaha ummadda soomaaliyeed iyo daroosaha waxa weeye maxaa la yidhahdaa dhaqanka bulshada ee soomaaliyeed iyo ka eegaha dananka ayaan ahay marka anigu cimaamadaasaan qaatay cimaamadaha la qaybinayo iyo koofidaha la qaybinayo taasaan ka qaatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu